hoggaanka ardayda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Uganda ayaa yeeshay kulan lagu tirakoobayay ardayda wax ka barta waddankaasi Uganda. Faafahinta warkan waxaa magaalada Kampala ee xarunta dalkaasi Uganda ka soo diray Yusuf Kashmir. madashan ay ku sugnayeen wakiilada jaamacadaha ay wax ka bartaan ardayda Soomaaliyeed ee Uganda ayaa waxa shir gudoominayay gudoomiyaha ardayda qaranka Soomaaliyeed ee dalka Uganda Cabdiqaadir Cumar Cabdilla Fiidka. kulanka ayaa lagu hadlayay ajandayaal dhowr ah oo xasdirada lagu saarayay suurtagalnimada tirakoob rasmi ah oo lagu sameeyo dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Uganda. xubnaha madasha ku sugnaa ayaa dood iyo falaqaynba ka yeeshay oo fulinta ajandahaasi. haddii ay dhacdo in xafiiska uu soo shaqeynay doorashadiisa ama systemka asoo ku yimid dadka doortay ama gudiyada u yeeraya doorashada ugu yeeraya inuu gudoomiyaha jaamacadaas Certain University dooranaya inuu helo laftigiisu soo ogaado halka ka ogaado. marka waa system fudud walaalayeen qaar way hayaanba oo tirakoob ku hayaan dadna waa ay fududahay oo jaamacadda waday branch kala duwan leeyihiin waa laga inay caqabad yar xoog ay ku tago kala fog yihiin kambasyadu inay madanigu kala jaamacadda hadda intee gaan maahane diiwaangelintooda guud waa haya registration waxyaabo ku guuleystay kamid ahayd oo waa haystaa hadda alxamdulillah ardayda jaamacadda ugu soo beertay keen oo sanad walbana waa sameeyay registration cusub haddana waa haystaa alxamdulillah tirakoobkaas oo kale u baahan tahay anfacaya jaamacadda ka finish meeqa arday ka jirto oo Soomaali ah oo wax barato maxay kala bartaan ma master bay dhigtaan ma badge bay dhigtaan ma foundation bay dhigtaan oo u baahantiin waxyaabaha kale oo shaqay karno waxa kamid ah in aan qabsano meeting loo dhanyahay jaamacadaha kaleeto ardayda matalayso iyo adika midowga la isku imaado laga sheekaysto arrimaha waxbarashada arrimaha ardayda not political not other issues sababtoo anaga ardayanahay ururkana waa urur ardayeed. intaas kadib wakiilka ardayda qaranka Soomaaliyeed ee Uganda Mudan Cabdiqaadir Cumar Cabdilla Fiidka ayaa wakiilada jaamacadaha ku amaanay hawsha ay u hayaan ardayda Soomaaliyeed oo wax ka barata Uganda wuxuuna ku bogaadiyay gudiyada dardargelinta tirakoobka ardayda. marka hore waxaan rabaa inaan idinka mahadceliyo runtii hawsha wanaagsan ee u haysaan ardayda Soomaaliyeed ee aad runtii gudoomiyaasha ugu tihiin ama aad ku matashaan jaamacadaha runtii aad ka socotaan oo arday badan oo Soomaaliyeed ay wax ka bartaan hawsha waxaana idinkula si haddii alla idinku sii dhiirigelinayna horta inaad shaqada halkeeda ka sii wadaan dabcan waana wada shaqayn doonaa haddii Allah awood la helo haddii aynu nahay ardayda qaranka Soomaaliyeed ajandayaasheena inoo hirgalay waan kan ku wada shaqayn lahayn iyadana sidoo kale iyo arinta tirakoobka iyaduna aan ka hadalnay runtii waxaan aad u soo dhaweynayaa walaalkay Maxamed ka Foundation University walaalkay Victoria University ka socda oo runtii almost hadda number fiican wax fiican oo lagu farxaa in la wadaago ah inay la socdaan cadadkii ardayda halka jaamacadda wax ka baranaysa insha Allah waxaan idinka marka codsanaynaa inaad si dardargelisaan oo gudiyada jaamacadihiina aad arintaas la wadaagtaan oo aad dardargelisaan hawshaas iyada ah in tirakoobka cadadka ardayda jaamacadaha mas'uuliyadda ugu tihiin ardaydeena Soomaaliyeed inaad soo ogaataan oo tirakoobkii guud gudoomiyaashii adikoo wakiilada ah in tirakoobka sidaas oo runtii inoogu bilowdo wixii maanta ka dambeeyo insha Allah ayna ka wada shaqeyno. ugu dambeyntii Bakar Cali oo ah gudoomiyaha ardayda oo ay wax ka bartaan jaamacadda caalamiga ee Kampala ayaa warbaahinta la wadaagay qodobadii kulanka ka soo baxay. kulanka waxaa looga hadlay saddex qodob. qodobka koowaad wuxuu ahaa inay isbartaan gudoomiyaasha ardayda Soomaaliyeed iyo dalladda ardayda qaranka Soomaaliyeed sidoo kale inuu noqdo kulan looga hadlayo qodobkiisa labaad ahaa wada shaqaynta sida u yeelan lahayd gudoomiyaasha ardayda Soomaaliyeed dalka Uganda iyo dalladda ardayda qaranka Soomaaliyeed sidoo kale wuxuu ahaa arrimaha tirakoobka oo qodobkii saddexaad ugu muhiimsan oo laga hadlayay ay ahayd maadaama la rabo Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan inay maaragta la sameeyo programka one man one vote ah runtii aad aan ugu faraxsanahay wuxuu ku soo dhamaaday si sharaf leh oo qiimo badan oo guul ah gudoomiyaashu intii ay fikradooda iyo karaankooda ahaayeen waxay ugu warbixiyeen wixii xog ogaalnimadooda ah ay ka hayaan systemka ardada dalka Uganda sidoo kale waxay gudoomiyaashu iyo dalladuba isla soo meel dhigeen oo maaragtay si fiican uga niqaasheen sidii loo wanaajinayo xiriirka ka dhaxayda ardayda midowga qaranka Soomaaliyeed
iyo sidoo kale ardada wax ku barata dalka Uganda aadaan ugu faraxsanahay inuu xiriirkan noqdo mid joogto ah Yusuf Maxamed Macalin Kashmir raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed Kampala